barnaamijkeenna waxaan uga hadli doonaa 10 jaamacadood ee adduunyada ugu qiimaha weyn sannadan 2020. jaamacadda koowaad waxaa lagu magacaabaa Massachusetts Institute of Technology oo ku taala waddanka Mareykanka. jaamacadda labaad waxaa noqotay jaamacadda Stanford University oo iyadana ku taala waddanka Mareykanka. sidoo kale jaamacadda saddexaad ee adduunyadan waxay noqotay Harvard University oo ku taala waddanka Mareykanka. jaamacadda afraad ee iyana ugu qiimaha weyn sannadan adduunyada waa jaamacadda Oxford University oo ku taala waddanka Britain. sidoo kale booska shanaad waxaa soo gashay jaamacadda lagu magacaabo California Institute of Technology. California Institute of Technology. booska lixaad waxaa xajisatay jaamacadda lagu magacaabo Zurich University oo ku taala waddanka Switzerland. toddobaad waxaa ku jirta Cambridge University oo ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn waddanka Britain. sidoo kale booska sideedaad waxaa soo gashay jaamacadda lagu magacaabo University College London UCL oo ku taala waddanka Britain ama Ingiriiska. booska sagaalaad waxaa ku jirta jaamacadda lagu magacaabo Imperial College London oo iyana ku taala waddanka Ingiriiska. booska ugu dambeeya ee tobnaadna waxaa xajisatay Chicago University oo ku taala waddanka Mareykanka.